kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa SHAAFINHO tube ku soo dhawaada muuqaal cusub warbixinteena waxa aynu ku soo qaadan doonaa waakay kulanka uu Lionel Messi ugu jecel yahay kulamadii uu saftay kooxda uu waqtiga badan ku qaadanaya ee Barcelona marka aad maqasho magaca Lionel Messi waxaad xasuusanaysaa kubad sixir ah iyo inuu qayb ka yahay haliyada kubadda cagta iyo xidigaha loo xiisi doono marka ay kubadda faaruqaan. Lionel Messi waa kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona ee qaranka Argentina waxaana uu ku naaloonayaa waqti qurux badan xilli uu ku taamayo in markiisii lixaad uu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or. La Pulga ayaa kulamo badan oo cajiib ah u saftay kooxdiisa Barcelona balse su'aasha la isweydiinayo waxa ay tahay waa kuma kulanka uu Lionel Messi ugu jecel yahay dhammaan kulamada uu saftay Barcelona. Haddii aad rabto inaad ogaato fadlan inala daawo warbixintan. inta aanan muuqaalka gudagelin waxaan ka codsanaynaa daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqato channelkan fadlan subscribe saar oo nagu soo biir riix gambaleelka digniinta si durbaba ay kuu soo gaaraan warbixinada xiisaha leh oo aan bartan soo gelino. laag nagu dhiirigeli fikradaadana inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga. qisada kulanka uu xiiseeyo Lionel Messi ayaa dib ugu laabanaysa sanadii 2011 iyo semifinalkii tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ee ka dhacay gegada Santiago Bernabeu. Barcelona ayaa u duushay Madrid si ay halkaas ugu wajahdo naadiga Los Blancos waxaana ay kala soo laabatay guul 2-0 ahayd. xidigaha Barcelona ayaa kulankaasi u shaqeeyay qaab qurux badan iyadoo uu hogaaminayay macalinka haatan Manchester City ee Pep Guardiola. Messi ayaa safka Barcelona ay qayb kala ahaayeen xidigihii ugu wanaagsanaa qadka dhexe kooxda Barcelona iyo guud ahaanba Spain ee Xavi Hernandez iyo Andres Iniesta. waxaana badi dadku ay ku fikiraan in safkii Pep Guardiola uu ahaa safkii ugu adkaa ee Barcelona taariikhda soo maray. inkastoo Real Madrid ay haysteen xidiga badan oo cajiib ah oo ay ka mid ahaayeen magacyada Ronaldo, Iker Casillas, Xabi Alonso, Sergio Ramos iyo Mesut Ozil, laakiin awooddu waxay ahaatay kooxda reer Catalan. kulankaasi ka dhacay gegada Santiago Bernabeu si qurux badan ay u shaqeeyeen wiilasha Guardiola. taabashooyinkooda kubadda iyo weliba dhaqaaqa Lionel Messi ayaa ka dhigay Barcelona mid aan la celin karin. xidigaha kooxda Los Blancos waxay isku dayeen inay joojiyaan Lionel Messi laakiin ma ahayn mid la hor istaagi karo. Messi waxa uu qiray in kulankaasi iyo markuu dib u xasuusto ay xaaladdu ahayd mid adag. Ramos ayaa kaarka digniinta ku qaatay Lionel Messi qaybihii dhexe ee ciyaarta. Messi ayaa 76 daqiiqo bilaabay goolasha waxaana uu kubaddu ka helay geesta isla markaana uu soo tuuray Avalai uu dib u mariyay golahay Iker Casillas, laakiin taasi oo kaliya kuma aysan filnaanin. Lionel Messi ayaa daqiiqadii 87aad ee kulankaasi cajiibka ahaa xilli Barca ay gool ku hogaaminayso waxa uu kubadda ka qaatay bartamaha garoonka isagoo si cajiib ah ugu taabtay ciyaaryahan Busquets. intaasi kadib Lionel Messi waxa uu u gooyay 4 difaac oo kooxda kubadda cagta Real Madrid ah oo lagu diray dhowr xidig oo qadka dhexe ka ciyaaraya markaasi waxaana kubadda uu dib u mariyay ugu dambeyn Iker Casillas kabtankii kooxda Los Blancos weliba isagoo dhulka ku sii dhacaya. dabaaldegii Lionel Messi ee kulankaasi waxa uu ahaa mid xamaasadiisa wata. sidoo kale La Pulga dhaqaaqiisii kulankaasi waxaa lagu tilmaami karay sixir iyo waxaan caadi ahayn. waxa uu ahaa goolkiisii 11aad kadib 11 kulan uu tartanka Champions League markaa ka qayb qaatay. kadib ciyaartaasi magaciisu waxa uu ahaa kan ugu badan ee dhawaaqiisa laga dareemayay Santiago Bernabeu iyo hareeraha garoonkaasi. Barcelona xilli ciyaareedkaasi waxay ku guuleysatay Champions League. Messi waxa uu hantay markiisii saddexaad oo xiriir ah abaalmarinta kubadda dahabka ah ee Ballon d'Or. inkastoo uu kulanku adkaa haddana xidiga reer Argentina ayaa mucjisadiisa la soo baxay isla markaana kulankii weynaa ka dhigay mid sahal ah. markii uu ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or fasal ciyaareedkii 2011 kaalinta labaad waxaa galay ciyaaryahanka inta badan xifaaltamaan ee Cristiano Ronaldo. sidoo kale saaxiibka Barcelona ee Messi ee Xavi Hernandez ayaa galay booska saddexaad xilli Andres Iniesta uu kaalinta afraad isaguna galay. Messi ayaa ka hadlay abaalmarinta shakhsiyadeed uu ku guuleystay waxaana uu qeexay in dhammaan biladaha shakhsiyadeed uu helayo sida abaalmarinta Ballon d'Or ay gacan ka geysteen dhammaan xidigaha Barcelona ee kooxda markaasi kula sugan uuna kaga mahadcelinayo shaqada koox ahaan ay u qabtaan si isagu ugu guuleysto abaalmarin shakhsi ah. dabcan Messi waxaa loo arkay in markaasi ay ahaan lahayd markiisii ugu dambeysay
ee ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d'Or, laakiin sanadkii xiga ayuu mar kale ku guuleystay, waxaana ay ahayd markii afraad oo xiriir ah. 2015 ayuu haddana markiisii shanaad ku guuleystay. Sanadan waxaa loo saadaalinayaa in markiisii lixaad uu ku guuleysan karo, isagoo hadda ka mid ah xidigaha u sharaxan abaalmarinta xidiga adduunka ee Ballon d'Or, iyadoo FIFA The Best abaalmarinta ay bixiyeen xiriirka kubadda cagta adduunka horay uu markaasi u hantay. intaasi waxaa inooga eg warbixintii ka hadlaysay Lionel Messi iyo kulanka uu ugu jecel yahay dhammaan ciyaarihii uu saftay Barcelona. kulankaasina waa ciyaartii semifinalka tartanka Champions League oo lugta labaad ka dhaceysay gegada Santiago Bernabeu, markaasoo Lionel Messi 2 gool uu ka dhaliyay Real Madrid uu tareenka markaa kaga tuuray. gool waxa uu ahaa mid banaanka la soo dhigay oo shabaqa ku leexiyay, goolka kalena wuxuu ahaa mid mucjiso ah oo ilaa ay hadda aan iloobin, kadib markii uu kubadda dhexda ka soo qaatay maray dhowr xidig oo difaaca Real Madrid ah kana dhaliyay gool mucjiso ah. adiga ahaan daawade, kulankii ayaad ku xasuustaa Lionel Messi inuu mucjiso sameeyay? haddii uu channelkeenu kugu cusub yahay, fadlan subscribe saar oo nagu soo biir, riix gambalaalka digniinta si durbaba ay kuu soo gaaraan warbixinada ugu horeeya aan bartan soo gelino, una share garee asxaabtaada. waad ku mahadsan tahay soo booqashada barteena.